السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشوينت الصوماليات دون ذا ميرك ستاد كجوكتان سعودو هذه أدبان دين سلامي يا دمانتين تلفونك ونوفرية قردو حالة الصومالية وخطرك السوغن أيو برنامج كان يكون السوغن هاي مركز سعودو هذا سينا شير قرية إن شاء الله تلفونك واندين فريا halkan aynu ka wada hadli doonaa ra'yiga ayaynu isdhaafsan doonaa qof walba fikradiisa ayuu soo jeedin doonaa waddankeennii ayaa waxa uu wajahay marxalad aad u adag oo shisheeye ma doonayo inaan sugo waxaan rabaa brief yar intaan marka hore dul maro kadibna dadka aan telefoonka u furo markaasi waxaan rabaa horta inaan ku bilaabo inaan dalkeena u duceyno insha allah cadow kasta oo isku dayayo waddankeena inuu waxyeeleeyo inaynu u duceyno marka ugu horeysa oo khatar walba oo nagu soo wajahan ilaahay ayaa ka weyn inuu ilaahayna gees mariyo dhibaatooyinkii aan hore u soo marnay iyo wax ka xuntoona inuusan ilaahay mar kale dib inoo ku celinin waxyaabaha iyo jalaafooyinka ay cadowga dhigayaan in ilaahay geesina ka mariyo waxaa la wada socotiin xaaladii Soomaaliya ay ku sugnayd caasimadii dalka ay ku sugnayd labadii bari ee la soo dhaafay waxaa la wada socoteen arrimo kale inay jireen oo doorashooyin waddanka in la isku hayay oo la isku maxaan ku radaa fahmi waayay dalkiina sidaas doorasho la'aan ay uga dhacday waxaa la wada socotiin go'aankii ugu dambeeyay ee dadka Soomaaliyeed ay wada sugayeen inuu ahaa shirkii Baydhabo ka socday ee gudiyadii maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo ah in dalkaani doorasho soo uga dhici lahayd gudigaasi farsamo ay ka shaqeeyaan kadibna wixii ay isla afgartaan maadaama loo dhan yahay oo maamul goboleedyada iyo federaalkii ay ku dhamaayeen Baydhabo la iskugu yimaado Muqdisho isla markaasina wixii gudigaasi farsamo ay ka shaqeeyeen la saxeexo kadibna doorasho loo dhaqaaqo sida dawladda socoteen sanadkii la soo dhaafay labadii nin ee jiitanka waday ee doorashada diidanaa ee milowba gobolkiisa uu goostay uu yiri halka la ima soo dhaafi karo dalka doorasho kama dhici karto ayaa la sugayay in ay 18 bisha yimaadaan 18 iyo 19 ba waa la sugayay ilaa iyo 20 oo maanta ahayd halkii laga sugayay Muqdisho mid waliba saldhigiisii ayuu aaday awal dadka qaar waa hubeen qaarna waa ka shakisanaayeen waxa laga yaabaa kuwa u taageerada ah inay shaki u qabeen oo ay islahaayeen waxaani waa propaganda ama waa wax la rabo in maxaan ku radaa lagu sumcad xumeeyo madaxweynayaashii laakiin qof walba oo aqli iyo garaad xitaa haba yaraaday intaas in la eego uu ku jiro maanta waadax ayuu arkaa halkii laga sugayay Muqdisho inay yimaadaan oo iyagu ay dalbadeen waayo meeshii la rabay markii ugu horeysay in doorashadu ka dhacdo waxay ahayd magaalada Garowe ayay ahayd Axmed Madoobe warqada loo qoray shir baa la isku iman doonaa waa in laga heshiiyo wixii la isku fahmi waayay Dhuusamareeb waa in magaaladaadii iyo xaruntaadii lagu yimaado gurigaaga halkaas ha ka dhacdo wuu diiday waa la socoteen ma la imanayo adduunka kama aysan dhicin maamul goboleed la yiri war halkaas shirkii dadka Soomaaliyeed looga armin lahaa oo ka dhacaya oo diida waayo waxa ogtihiin magaaladaasi iyada dangaara ku qabta marka laga yimaado Soomaaliya oo dandanteeda oo shir guud marka laga yimaado hadda magaaladii waxa ka soo galaya dhaqaale waxa ka soo galaya sharaf iyo sumcad waxa ka soo galaya wanaag intaas oo lacaga soo gali lahayd waayo madax baa imanaysa hoteelada la kareysanaya cunto laga cunaya waxaan ku uri gaadiid baa la kareysanaya waxay noqonaysaa marka magaalada dhaqaaleheedu inuu sare u kaco xagee nagu wadaa marka waayahay dani marka uu inta soo dhan u diiday okay kaba soo tan waa loo yeelo waxa lagu yiri kaalay Muqdisho ima hadaad ku qanacsanayn xaruntaadii iyo gurigaagii in lagu yimaado waayahay buu yiri gudigii farsamo markii ay soo saareen go'aankii ay ku qanacsanaayeen Dini iyo Axmed Madoobe oo waxa ay rabeen iyo wax kasta oo adigu la isku afgartay wixii lagu heshiiyay markii la yimid in la saxeexa ay ka dhinay wuxuu yiri imaan maayo Muqdisho unless xalane la ifro Axmed iyo Dini waxay yiraahdeen xalane mana lagu casuumayaa beesha caalamku mana la saxeexaysaa haba yiraahdeen الله عيبية عيبتاس يقول دح فديو أو يري حلنا واربنا إن لو عسومو
beesha caalamkuna waa rabnaa inay nala saxeexdo ayaa hadalkaasi markay sidaa Facebook ugu soo boos gareeyeen midna wuxuu ka dhacay Calowle midna wuxuu ka dhacay Nairobi maxaa horta Nairobi waaba ku ogeyn kan oo waaba beeskiisii iyo xaruntiisii laakiin se ninkii daniyaha Calowle maxaa loogu sheegay Calowle tagay caawe maxaa Calowle jooga waxa Calowle jooga rabaa inaan idin sheego hadaba Calowle waxaa jooga imaaraadkii soo saaray saaka warqad wasaaradiisa arrimaha dibadda warqad bay soo saartay warqadda English bay ku qoran tahay page-kayga ku soo share gareeyay waxa warqadda ku qoran dawladda Soomaaliya ee dhacday dawladda Soomaaliya ee dhacday ayaa ku qoran imaaraad marka waxaanu leenahay imaaraadow carabey ilmaadeerayaalow warkani waa idinka soo horeeyay raggii aad u soo dhiibateen ayaa mar hore iyadoo boodhar waaweyn ku qoran ayay Muqdisho isla soo dhex taageen dawladdii waa dhacday isla intii marka ay hore u soo dhiibateen shaqaalihiina ayaa iminkana ku soo qorteen wasaaradiina arrimaha dibadda marka warkani inuu idinka soo baxay markii boodharka af carabiga lagu soo qorayay way iska cadayd in imaaraad soo yeedhiyay inaad carabigan idinku soo qorteen oo dad Soomaaliyeed oo mudaharaadaya inaysan af Soomaali ma ogeen wax kale ku mudaharaadeen waa la ogaayay markii aad soo dhiibteen carabigii oo boorarka la idinku qoray wasaaradii arrimaha dibadda ee Emirates iyaduna sidoo kale isla wixii boorka ku qornaa oo ahaa dalkaani dawladda kama jirto ayay waxay ku soo daabaceen wasaaradoodii arrimaha dibadda bal Emiradow Soomaaliya maada madaxweyne ka war Soomaaliya maada xukuma war Soomaaliya maaday ku hoos tagtaa Soomaaliya dawladeeda iyo dawlad la'aanteeda maxaa kaaga 15 maxaa Soomaaliya ka galay haddii imaaraad dawladda ay leedahay haddaysan lahayn iyo hadday dhacayso iyo hadday doorasho leedahay haddaysan qabsoomeynba war miyaan anagu idin faragashanaa miyaan intaynu tagna dhahnaa dawladii imaaraad doorashadeedii maysan dhicin qof Soomaaliya iyo nin siyaasi oo Soomaaliyeed xitaa ka faalooda ma jiro waxa kale oo ogtihiin dawladii Qatar ee iyaduna lahayd Soomaaliyan caawinaya oo lahayd waxaan u dhisayaa wadamo oo lahayd waxa lahayd wadooyin bandhisaya ama ciidan baan u tababaraya ujeedkeedii maanta uu cadaaday markii dhibaatadii iyaga iyo kala dhaxaysay Imaaraat iyo Saudi Arabia alayd bay la noqdeen iminka alayd bay leeyihiin carab oo dhan maanta Soomaaliya mid u tahay carab oo dhan maanta Soomaaliya gacmaha isu haysataa Qatar waa ay kaga baxday Soomaaliya caawimadii ay u haysay madaxweynaha Soomaaliya intay la soo hadleen ayaa waxay yiraahdeen ka tanaasul badda ay kugu haysato Kenya ka tanaasul shaqaale Kenyana iyaguna noqdeen alayd waxay la noqdeen Emirates iyo Kenya iyo dhammaan intii Soomaaliya cadawga ka ahayd ayuu Qatarna ay ku biirtay sababta ugu biirtaan rabaa inaan idin sheego marka Soomaaliya cadawga ugu horeeya oo ay leedahay oo wax walba ka horeeya waa carab cadawga ugu horeeyay Soomaaliya leedahay maanta waa carab horena way u lahayd haddana way u leedahay waligoodna carabi Soomaaliya cadow bay ku ahayd waxa ay cadawga ugu tahayna wax kala ma waa danta yar gaarka ah oo shidaalka weeyaan waa shidaalka Soomaaliya sinaba yeysan heeray kula soo baxday u gaari way waa dawladnimo awood laho shidaal soo saaran karta yeysan Soomaaliya yeelan waa inta waxa naloo colaadsanayo oo cadaawadna loogu qaaday oo la isugu kaandirayo oo dhexdeena looga shaqaysanayo maanta Imaaraad markuu warqadaasi soo qoray wasaaradeeda arrimaha dibadda dani wuxuu la orday oo Calowle ugu tagay halkaas diyaarad ah helicopter ugu imaanayso that means waxa loo sheegayaa in la yiraahdo war dalkani dawladii kama jirto way dhacday dawladii saxiixaaga dani oo soconayee inta yarada mas'uulka ka tahay waxa aanu ka rabno oo dana anooga fuli war reer Buntland yaana dhulkiina la idin dhaafin Calowle wax kale kama uusan doonin dani warqadda imaaraadka uu soo qoray ee uu leeyahay dalka Soomaaliya dalka dawladda kama jirto micnaheeda waxa weeyaan waxaan rabo ayaan Soomaaliya maanta ka samaysan karayaa micnaheeda waxa weeyaan waxa laale waxaan doono ayaan dani ka saxiixanayaa dadka reer Buntland iyo dhammaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed dalkiina inaad badbaadsataan idinka ay dani ku jirtaan
waddanka kaliya ee maanta Soomaaliya alaydlaa ama saaxiib la ah waa Turki weeye waddanka kaliya ee maanta la dhihi karo Soomaaliya way u kalsoonaan kartaa waa Turki laakiin carab maryeweyn oo dhan heshiisay ku tahay saasi kuugu gadaaman tahay waxaad la socotiin Al Jazeera oo qadar ay ku leedahay sharka ugu badan Al Jazeera Soomaaliya sas focuska ugu haysa waxaan ahayna caalamka uma gudbiso burbur iyo baaba Soomaaliya ka jira dawladeedu waa dhacda qas iyo laba ka socda dal burbursano bilaa dawlada weeyaan waxaan ahayn kama sheekayso Al Jazeera waxa soo jeediye oo sharka ugu badan ku leh oo hurinayana waa carab khaasatan qadar oo indhawaali Soomaaliya saaxiib iskala dhigaysa intii yaray ee ay danteeda ka arkaysay ee ay islahayd maanta Imaaraat iyo Sacuudi ayaa kugu kacsane yaad saaxiib ka dhigataa inta yaray ay danteeda fiirsanaysay Soomaaliya saaxiib iskala dhigaysay laakiin maanta saaxiibna lama aha carabi saf ayay ugu jirtaa Soomaaliya wax kalena ma aha waa dhulka rabbi ummadda Soomaaliyeed ku beeray waa badda ay haystaan waa shidaalka ay haystaan waa si aanan loola soo bixin shidaalka waayo qadar hadday danteeda ka dhixarka weyda hadday istirado war wadankaana haduu dawlad yeesho hadii shidaalkan la soo saaro adigana waa lagu fuuqsanayaa dadaalka ugu badan ee ay bixinaysa waxa weeyaan war dalkan si ku burburisaa weey dalkan sida dhulka ula sintaa sidee qas iyo fawda uga bilowda sidee iskugu dirtaa sidee mirmir isugu dirtaa madaxayaga isugu gelisaa ilaahay baa badbaadiyay fashilkii koobaad ama qorshihii koobaad oo fashilmay wuxuu ahaa mudaharaadkii 19 Febraayo doontii hubka ahayd ee la qabtay iyo raggii soo qaatay boorarka afka carabiga ku qoran ujeedada dhan ee laga lahaa waxay ahayd waxa yaray Soomaaliya soo urursatay waxa yaray ay Soomaaliya maanta isla wada eeganayso in la afgambiyo in dalka qalalaas laga rido in la yiraahdo xagee bay ku dambeysay Soomaaliya ha qorshihii koobaad markuu fashilmay oo ilaahay baa noo cabiidiyay ciidankii Mareykan uu doontii fashiliyay oo qabtay oo ilaahay khayr siiyay ciidamadii Soomaaliyeed ay ka hortageen kuwii boorarka carabiga ku qoran watay ayaa waxa la yiri what's next maalintii ku xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee qadar ee Imaaraat waxay soo saartay warqad ah Soomaaliya dawladda kama jirto Soomaaliya aanu danaynaynaa amnigeedaanu danaynaynaa amni xumaa ka jirta dawlad la'aan baa ka jirta Soomaaliya xaaladeedu waa ka dartay maxaa kaloo ku xigay daniyow caluulo noogu imo marka dani markaas halkaas uu diyaarad ka qaatay boosaas uu tagay baabuur buu ka sii raacay buuraha qandaluu sii dhex jeexay calawlu jooga caawa halkaas uu ku sugayaa ibnu Imaaraat buu halkaa ku sugayaa daniyow uhuru ayuu la joogaa isagana dawladda Soomaaliya dalkan adiga mas'uulka ah Axmed Madoobe yuusan dalka dib ugu soo noqon uhuru ha iskala joogo uhuru ha la joogo maxaa loo yiraahdaa dawladda Soomaaliya waxa u xiran bad iyo cirkay xiran kartaa maxay ahayd controlkii badda cirka waa la soo celiyo Soomaaliya laga xukumaa how come inuu dani maalintu rabana uu maalintu rabo inuu yimaado Axmed Madoobe yimaado oo Kenya tago ha laga xidho way ga dardaaran dani ha laga xidho Soomaaliya inuu dib ugu soo laabto reer Buntlandna hadii aydan maanta dani iska qabanin hadii aydan maanta labada magacsan isu dhex marinaya waa isku celcelinaya macna xagga marna dani marna Axmed Madoobe hadii reer Buntland oo aydan idinku Axmed Madoobe aydan dani meel iska saarin waa gadantihiin caawa waad gadantihiin miiskaad saarantihiin qandala la idin kula kala wareegaya qandala miyaan sacaluula meesh buuraha caluula caawa la idin kula kala wareegaya dahabkiyo diinaarka awalba halka waa laga daldalan jiray maraakiibtu waa lagu guri jiray muuqaalaan hore idinku soo qaybiyay way jireen xitaa kuwa askarta halka jooga wallahi u shaqeyn jiray ee Imaaraat ku wato xilligii Cabdiweligaas joogay bay ahayd ayaa sawirradii iyo fiidiyoyada ila wadaageen halkaan idin kula soo wadaagay wardadiiho haydaydan idinku noqonin dad iyagu dalkooda u soo jeeda haddaydan idinku noqonin dad waxa dhacaya
awareness-koodu uu kacsan yahay oo markasta war qabo war haya haddaydaan noqonin dad ka kaca oo ka baraaruga dhibaatada kusoo wajahan waddankooda haddii aydan noqonin waxaad ogaataan meel cidlaa idinkoo kasoo toosay inaad aragtaan denim caawa buuraha calulu idinku saxiixaya ibnu hebelow magacyadooda garan maayee nimankii imaaraadka ayaa halkaa diyaarad ku imaan doona isna halkaasuu tegay halkii muqdisho laga sugayay waxaa u yeedhay amiirkiisii imaaraad halkii muqdisho laga sugayay axmedna waxaa u yeedhay amiirkiisii kenya war dadka soomaaliyeed oo kaca oo baraaruga war dadka soomaaliyeed oo wallaahi dalkan haddaanan maanta dhiig loo daadin war wallaahi haddaanan islaan iyo oday iyo wiil yar iyo gabadh la isku duuban war wallaahi haddii aanan maanta soomaaliya loo soo wada jeesan meel ayaa lagaga soo xari doonaa soomaaliya mid hadalkaasi meel ku qora because imaarad maanta wuxuu ogaa waa fashilan yahay horta marka koobaad 20 jeer buu soomaaliya ku fashilan yahay laakiin nin qoyani baa la yiri biyo iskama dhowro nin meel u cadahayna meel ka madow shidaalka soomaaliya soo saaridiisa sida ugu hortagi lahaayeen baa iyaga u cad ceebi waa ka madowday marka qalad ay geystaan waa ka madowday waa xadgudubyo caalamiya waxa ay sameynayaan waa xadgudubyo doonida la isku maxkamadayn karo la isku dacweyn karo laakiin se iyagu waxa weeyaan xalkooda nin qoyan biyo iskama dhowro war Soomaaliya dadkeeda ayay u baahan tahay dad nool bay u baahan tahay hadal uma baahna ee waxay u baahan tahay Soomaaliya gacan bira in laga badbaadiyo dadka dhibaataynaya waan idinku dheeraaday raalli ahaada waxaan idin bala qaaday in hadalka soo koobi doono khadkana idin furi doono marka xaajadu wataas Soomaaliya maanta shisheeye iyo sakeeye isbahaystay ayay u baahan tahay in laga badbaadiyo cidii ka badbaadin lahaydna waa idinka fadhiga ha laga kaco Soomaaliya fadhiga ha laga kaco Soomaaliya fadhiga ha laga kaco Soomaaliya fadhiga ha laga kaco war fadhi idin ma yaalo السلام عليكم ولا المقعد مش تشوفتوا برنامج كهرباء وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله المقعد ما جيبوا مقدشو حالة مقدشو عاوة كورن والله ما شاء الله مقدشو أفر لا تكسع قدام بي وحد مدى حالة ديني عسنا لكن هذا ما شاء الله ما بتجيب عادي وصنع لي إلا عاوة جيبوا تقيها sideed u aragtaa nimanka maanta shirka ka baqaya Kenya iyo kala aaday calula wallahi arintaas waa arin laga xumaado sababtoo ah dani waxaad moodaa Axmed Madoobe arrimo kale inay ka dhax hadlayaan ama wadamo shay ka dhax hadlayaan moodaa sababtana waxa waaye madaxweynaha qaranka Maxamed Abdullaahi Farmaajo ku baaqay shirka lagu qabto Garowe laakiin dani wuxuu ku andacooday inaan lagala tashanin balse wuxuu yiri muqdisho lagu qabto muqdishada loo yeelay kadib hadana shirka waa ka baxeen boo ayagoo cudurdaar kale iyo waxyaalo kala sameeynayo marka ma wuxuu muuqdaba inuu wadan shisheeye dana shisheeye inuu ninkaasi uu ku shaqeynayo mise waaba wax cad oo aan u baahnayn macnaha cadaynin maanta loo soo raadiyo ma u baahan tahay ma xaqiiqda jirto waa iska cad qof walba Soomaali oo muwaadin ah uu dareemi kara sababtoo ah heshiisyadii 17 September heshiiska ayaga galay wax walba si walba loo sameeyay wax walba diideen marka Soomaalidu waxay dhahdaa hashanday ilmaha maqaarka diidayso meelaha dulolay ka ursata marka waxa ila tahay ayagoo dana shisheeyaha hawla kala ku jiro wax walba loo sameeyna taaka walbana ayaga dhigayo macna wax walba madaxweynaha uu mar walba ay ku xujiyaan waa loo yeelaa ma fuliyaan amarka wax walba heshiiska ay saxeen diideen maxaad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay da'yartii dalkan iska lahayd والله dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa meel walba ay joogaan wadankooda wax u dhaama lahan maanta waxa la maraa 2021 la maraya adduunku waa hormaray Soomaalida waxaad moodaa khabiir iyo waxaan hadda loo fadhinin inay aad uga sheekeynayaan aad baan kuugu mahad celinaya qofka xeeran ka qabanaya hello السلام عليكم ولا المقعد مش تشوفتوا وعليكم السلام كر عدكاga kor qaad وعليكم السلام hello
waa ka go-ay qofkaasi walow codkiisu gaaban yahay waxaan ka codsanayaa qofka codkiisa inuu kor u qaado si dadka dhageysanaya ay u maqlaan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga walaali meesha joogto cismaan oo South Africa jooga walaal xaaladda hadda dalku maraya sideed u aragtaa khaasatan hadda arrintii ugu dambeysay oo aadan iyo Axmed Madoobe oo marshana shirki ka baxay walaal waxaan cid kasta way og tahay oo qoraal ogaay wax lama ogaay ma fahanto haye adigu haddaan dhulka iska qaadin cid bini aadan oo kaa qaadaysa ma jirto si wacan waxaa loo baahan yahay marka arrintan waa arrin khatara mar hore soo jirtay weligeeda soo jiri jirtay in si wada jira oo daacadnimo loo wajaha loo baahan yahay aad baan kuugu mahad celinayaa walaalo qofka xiga halo assalaamu calaykum walaalo magacaaga iyo meeshaad joogto khayr socdaan bal ilaa waxaan joogaa Saudi Arabia sacuudi carabiya soo dhawo walaale fikirkaaga ku aadan shirka arrimaha hadda Soomaaliya ka socda khaasatan shirkan ay hadda Axmed Madoobe dina ka baxeen markii ugu dambeysay wallahi maxaa ku dhaw walaal aad baad mahadsan tahay marka hore waan ku dhawahay baan ku leeyahay hadda qoraal yacni uu soo dhigay baan arkayay oo Emirates laga lahaa ama wasiirka kaashandhiga Emirates uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda waxa weeyaan walaal dadkaas labadan nin ee sheegaysa hadda waxa weeyaan waa dad u shaqeeya dadka ajaanibta ah ama yacni dawladaha shay u shaqeeya dhalinyarta hadda yacni da'deedana waxaan leeyahay run ahaantii anigu dalkan aan jooga Saudi Arabia saan ku soo galayna ilaahay baa bahdilka iyo yacni qiimo darrada ku joogana ilaahay baa og marka dhalinyarada waxaan leeyahay dadka 20 jiraha walaalayaal oday dhamaaday oo waqtigiisa soo qaatay iyo nin dadka la u shaqeynaya inay noodin aan danteena garanan leh aad baan kuugu mahad celinayaa walaalo qofka xiga hal assalaamu calaykum walaalo meesha joogtay magacaaga codkaagu waa yara gaaban yahay korqa sidii aan ma maqashaa sadaqa ha waa ku maqlaa walaalo ku soco maasha Allah dhamaan weyn salaam asxaabta iyo dhageystayaasha waxaan ka soo hadlayaa wadanka Germany waan ku noolahay kula waxaan ahay dadka ma aragtay dadka fooda Soomaaliya wada ay dhibaatadii iyo qaxii ka soo gaaray wasoo carray wadankoodii hadana ku wadamada qurbaha maxaan ku dhahdaa runtii ku abaata marka waxaan rabaa fikirkayga rabaa inaan ka dhibto wixii muqdisho kala ka dhacay iyo xaaladaha Soomaaliya siday u socdaan soo marka laga hadlo xaqiiq marka laga hadlo wixii shalay muqdisho ka dhacay horto nimanka mucaaradka ah 24 saac 10 goor shirka jaraa'id qabanaya ayaa ka mas'uula sababta ay uga mas'uul yihiin wuxuu ahaa marka hore istiraatiiji la dhigay buu ahaa in marka hore buuqa ay bilaabaan buuqa marka loo dhawaad kama jirto madaxweyne kama jiro waa lagu kala yaacay wax kasta waxay noqdeen filer baan ayaa waa isla dhaceen ninkan la dhaw anigu marka waxaan ku soo jeedin lahaa haddii xaqiiq laga hadlaayo waan soo jeedin lahaa beelaha Jubaland iyo beelaha maxaan ku dhahdaa Puntland waxay leeyihiin boqorro waxay leeyihiin garaado waxay leeyihiin maxaan ku dhahdaa isimo in nimankan wada hadalkan iyo waxaan maalin kasta leeyahay warkaaleed doorashadii saxeexay kaale yeelay in laga gudbo oo dadkan boqor burhaan ugu horeeyo maxaan ku dhahdaa garaadada ugu horeeyaan suldaamada ugu horeeyaan loo yeero xildhibaanadii ay keenaan doorashadii la diyaariyo oo la qabo laanahu qof kasta oo bini aadan oo xaqiiqda islaamnimada xitaa ku jirtay Soomaalnimadu uu arkaa labadan inaanay diyaar ahayn dabadana ay ku hayaan cadow iyo shisheeye iyo carab doonaysa Soomaaliya inay weligeed barteeda taagnaato oo shidaalkeedu aan soo bixin oo horumarkeeda aanay gaadhin oo iyagu maaha kaliya waxay haystaan cagaha farmaajo cagaha Soomaaliya haystaan ummadda Soomaaliyeed yar iyo weyn ayay cagaha haystaan aad baan kuugu mahad celinayaa walaalkay qofka xigan ka qabanaya hal assalaamu calaykum halo magacaaga iyo meeshaad joogto walaal adoo soo koobaya fikirkaaga Soomaaliya xaaladeeda halo ma maqashaa halo waa ka xumahay qofkaan waa ismaqli weynay khadka ka culus ayaan filaya qofka xiga ayaan ka qabanaya hallo assalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad joogto adoo ku bilaabaya xaaladda Soomaaliya dhawahay magacaygu waa daahir caynabo oo jooga magaalada Muqdisho daahir caynabo Muqdisho jooga Muqdisho ka waran caawa waa Muqdisho xaaladeeda
aaday u degan tahay waxaa had soo gaaray madaxweynaha galmudug ee qorqor waa arrintaa waa la soconaa xaaladda sideed u aragtaa hadda marka laga yimaado jawiga iyo wixii dhacay labada nin ee markii ugu dambeysay hadda shirkii ku gacan sayday muqdisho ee doorashada lagu saxeexay horta sala socotid waxaa hor usoo gaaray cali guudlaawe oo hirshabeella iyo lafta gareen oo ah ee koonfur galbeed aad baan ula soconay haddana galmudug haddana qorqora yimid kolley dadkii labada nin oo dowladda mucaaradka ku haya maqal ma fahad sax marka kolley imaaraadka iyo kenya dabada ka riixa labadaas ninsaa dareemayno waa gartay marka barnaamijka waa sidaas walaal maxaad soo jeedinaysaa waxaa tahay dhalintii muqdisho waxaa tahay dadkii mustaqbalka dalkan lahaa waxaad ogtahay axmed madoobe wuxuu joogaa kenya dani wuxuu aaday calula halkaasi dad xoogaali waxay sheegayaan in imaaraadku ay soo dirsan doonaan dad halkaa kula kulmaya maxaad usoo jeedinaysaa dadka soomaaliyeed maadaama uu mustaqbalkii wadanku hadda ku jiro xaalad aad arkayso in si toosa dalalka shisheeye ay ugu hayaan weerar qaawan waa horta dowladda soomaaliya xilligii wax loo yeerinayay mase war kenya lagu soo qorayo ee qaadanaysa lama joogo dee waa ogtahay kenya iyo soomaaliyana wax ka dhexeeyo imaaraadkana waa ogtahay markuu farmaajo la doortay in dalka laga saaray marka umalay maayo wax kenya soo qortay in farmaajo iyo xamar ku soconayaan kolley dadka iyagu soo direenna dee waa ogeed 19 bishan wax ka dhacay marka waxaa leedahay dowladaydan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol aad baan kuugu mahad celinaya walaal qofka xeen ka qabanaya halo assalaamu calaykum magacaaga meesha joogto walaalada ku bilaabaya barnaamijka rowgal waa ka xumahay mar labaad ayuu qofkaani soo wacay laakiin wuu usoo geli leeyahay khadka ayaa kaa culus ayaan filayaa meel khadla tag markaasi ugu soo celi haddaa la idmo halo magacaaga walaaliyo meesha joogto barnaamijka rowgal waxaan joogaa gobolka Sool caasimadda Laascaanood. Laascaanood sidoo lagu yahay caawa? Wallahi masha Allah walaal lagu fiican yahay lagu dhaqan yahay. barnaamijka hore uu galsay u aragta xaaladda dalka Soomaaliya guud ahaan khaasatan labadii nin ee hadda ka baxay markii ugu dambeysay shirkii heshiiska doorashada lagu saxiixi lahaa. Wallahi runtii horta waa wax laga xumaado madaxweynaha labadii qof ee mas'uulka ka ahaa Puntland iyo Jubbaland in ay dalka saa u galaan runtii ka dhalinyar ahaana waan ka xunahay maxaa la gudboon dhalinta marka Soomaaliya kula midka waxaan ugu baaqayaa runtii inay ka dhiidhiyaan waxaan dhacaya bulshada iyaga u xooga iyaga u bahalkiya u maskaxa hadda aniga shakhsi ahaanteed waxaan ka mid ah dhalinyarta xooga dalka Soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqayaa inay ka dhiidhiyaan sida la socona Jubbaland iyo Puntlandba waxaa ka jira caqabado badan oo ka mid ah qofkii hadlaba in la caburiyo marka dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa inay bustaha iska qaadaan meel ay joogaan dhiiga shubaan aad baan kugu mahad celinayaa walaalo qofka xiga ayaan ka qabanayaa halo assalaamu calaykum walaalo magacaaga meesha joogtaada ku bilaabaya barnaamijka hore u gal hello waan ka xumahay taleefankaanina khadka ayaa ka yar culus meel khadla tag ayaan ku dhihi lahaa markaas kadibna igu soo ceeli halo assalaamu calaykum magacaaga meesha joogta walaalo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بسم الله عبد الله. aad baan kaaga qaaday reer Washington inaad taa malaynaya from Seattle Washington. aad baan ku salaamayaa adiga reer Washington ba barnaamijka hore u gal walaalo magacaaga aad ku bilaabaysid sideed u aragtaa xaaladda hadda taagan Soomaaliya abaa ugu salaam marka hore ani maxamed Yuusuf Baldaha wallahi anigu kulli hadda walaacayo dhibka aad muujinaysaan ma arko wadankani dawlad buu leeyahay dawlad waqtigeeda ka dhamaado laakiin dawladihii hore ee waqtigu ka dhamaan jiray la mid tahay marka wax walaaca anu hadda ma arko dad oo caado qaatiyaal ah oo imaaraad iyo Kenya ay soo dirsadeen oo malayn maayo wadankan inay wax ka qaadi karaan ma garad sax wadankan 30 sano asoo dawladana ba yaa waxba laga qaadi waayay maanta oo rajo iyo iftiin fiican oo muuqdo oo
ciidamo daacad ah oo aad u akhlaaq badan oo mooryaantii iyo qashinkii aanan ahayn ee aad u wanaagsan ee si fiican u tababaran ee maanta kenyana ka baqayso dowladaha dariskana ay ka baqayaan xadudihii iyo meel walbana gacanta ku dhigay ayaa joogo lagu kalsoon yahay 100% marka aniga waxaan qabaa waxaan afka noolayaal baa u bixiya afkii ka noolyihin ma fahmi okay xaaladda hadda axmed madoobe iyo dini waxa ay ku kacayaan lama inkiri karo sababtoo ah dee deegaanada ugu badan soomaaliya bay yidhahdeen madaxweyneyaal baanu ka nahay puntland hadday noqoto jubbaland hadday noqoto doorashadii intaasoo jeer bay diideen heshiiskii ugu dambeeyey oo loo tanaasulay oo wax walba oo ayagu markaa raadinayeen loo sameeyey oo baydhabo hadda guddigii farsamee loo saaray ay kusoo gabagabeeyeen inay saxeexaan ay muqdisho yimaadeen waa diideen in garowe loogu tago waa diideen ifan xitaa haddaysan rabin muqdisho meeshii guddigu joogeen oo baydhabo waa ku saxeexi karayeen waa diideen marka la saxeexi welina dad bay madaxweyneyaalu yihiin iyo dal soomaaliyeed bay ka yihiin sidee arrintaa la isaga indhigtari karayaa marka shisheeyihii cadowga ku ahaa soomaaliya imaaraad iyo kenya ugu horeeyaan mid walba madaxu ka sitaa horta nimanka la yidhaahdo ninka la yidhahdo deni iyo axmed madoobe waa laba nin nina imaaraat ugu shaqeeya nina kenya ugu shaqeeya labadaas nin raggaasaa soo dirsaday nimanka aljazeera jooga ee midowga la baxay shalay waa arkaysa kabihii ka dhumeen kabalaan cararahayay ee afka noolayaal la yidhaahdo iyo ayaga way isku xiran yihiin go-aan waxay ku gaareen markii baydhabo lagu saxeexay guddigii lasoo diray baydhabo arrimihii ugu muhiimsanaa ay xal ka gaareen waxay go-aan ku gaareen mudaharaad intaan ka dhigayna maalintii jimcada February 19 wax nasuga waa lagu heshiiyey filinka waa fashilmay haddana waxaan kuu sheegayaa ayagoo sanka ka duran oon la baryayn iyo muqdisho tagayaan wayna ku qasbiyen waana ogaan doontaa inay tagaan magrib aad baan kuugu mahad celinaya walaal aad baan ku salaamaya reer siyaalalba qofka xiga ayaan ka qabanayaa halo asalaamu calaykum hello hello aad baan uga xumahay qofkaas waa usoo geli laayahay khadka ayaa ka xunayaan filayaa meel khadle inaad tagtaa rajeynaya markaasna aad ugu soo celin doonto halo asalaamu calaykum walaal magacaaga meesha joogto وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله حسين محاج مقالة مقدشو. مقالة مقدشو عام مقدشو سألو بسو هيستي. والله الحمد لله مقالة مقدشو دقنت عجيبي كده اوكي. هي حالة ده سوماليا هراو قال برنامجك وحو كسابسن yahay wixii hadda Soomaaliya ka dhacay ilaa 2 dhacshi ugu dambeeyay nimankii Axmed iyo Deni oo mid waliba uu u jahaystay midna saldhigiisii u aaday Nairobi midna uu aaday Calula caawa heshiiskii la rabay in la saxeexan halkaasi ay ku burburiyeen marka waxaan rabaa laba qodob inaan ka soo koobo laba qodob bilistiga waxaan rabaa barnaamijka horta ee guddiga musharaxiinta waxa la yiraahdo waa laba shay ay iska kay qaban la waay dad musharaxiin ah hal kuraas raadinaya oo haddana ku midooba waxa adduunka weligeed laga arkay ma fahantaadi midowga musharaxiinta ma sheegaysaa waxa uu horeeyo adduunka weligeed kama dhicin dad musharaxiin ah هذا مدوة. مدوة لبحاي. وأمور أدوق ولد كما درعن فهد. هاي. سوماليا لقى أركي ومد دانيش شيء لقوم مدوة واي. كل بارك إن شاء الله بتن واركي سي وحقوق قرنا إنجليزي وعربي حقوق قرناين. ما هين بلان بحر ضد سوماليا ده حقوق والورادين ما هين. كل وحصل دنت لقى لها وجيت لقى لها ولا جاري. أحمد إيو كل أحمد دن كلي ومانتم way kala daneysteen danihii ugu muhiimsanaa ay lahaayeen miduu musharaxiintu way gaareen horta in qalaas ka dhacdo imaaraadka maanta aragtay wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo warqay soo saartay oo ku cadaynayso inuu dhayso dawladda Soomaaliya ku meel gaar ah aqoonsanahay waa intii yar loo baahnaa ay loo igmaday way sameeyeen fahantaday hadda waxa warsan dibadda baxay kale rabaa inay sameeyaan taas Uhuru Kenyatta ugu talagalay Soomaaliya in lagu soo qoraa in la taamir afsoomaaliya ku soo qoraan boor عربي إنجليش كوارني سوي حلو بس وين أميا. سواء سوينا بس كليها أو وركينات ورال كلينا. أوكي محاد سوي شيء دني سادلين الصومالية ذا المستقبل كي وطن كان اللي وطن كاني سانكم تشري كرو دور الشدي وطن كي وقت اللي ربينا كل عدوا كل عويدة صوابته عضبنا عنه كلا يا شرا.
maya dadka aniga ka adag ma fahantaadi dhalinyarta Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya waxa loo soo dhigto waa dhiigoodii iyo dhulkooda loo soo dhigtay in la qaato marka waxaa ugu baaqaya haddii dadkan ay waayaan ma wax usoo banaan baxa ay waayaan waa hawshoodu way gablantay ma fahantaadi meeshay ku eg tahay dawlad ma baahna ciidan ma baahna aniga ku filan dadkan aad baan kugu mahad celinaya walaal aad iyo aad dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waa baraarugsan yihiin qorshe walba aad wadataana waa la fahmay shisheeye oo kalkaalow xaaladaadu waa xun tahay waa goblantay waad maqlaysaa soo dhaw walaal magacaaga iyo meeshaad joogto adoo ku bilaabaya barnaamijka Rowgal aad baan uga xumahay khadka telefoonka ayaa ka culus internet laan inay jirtaan malaynaya qofka xigaan ka qaban doona assalaamu calaykum magacaaga meesha joogto walaal barnaamijka Rowgal assalaamu calaykum alaykum salaam suleekha aad baan ku salaamaya mujaahid waxaa jooga North America magacaygana waxaa la yidhaahdaa Mukhtaar aad baan u salaamayaa dhammaan inta qolka joogta ee Soomaaliyeed ee Soomaalinimadu isfitaayay qalbigooda oo daacad ay ka tahay barnaamijka waan dhegeysanayay waana la socday anigu waxaan jeclahay inaan taabto nimanka siyaasiyiinta isku sheega iyo nimanka maamul goboleedada isku sheega ee Soomaaliya labada arbood haysta qarannimada inay hore u martana diidan waxaan jeclahay inaan in yar u bayaaniyo shacabka Soomaaliyeed wixii maqlaaya nimankan siyaasiyiinta isku sheega runtii waaba dad iska kooban oo afar shan nin weeyaanba marka afartanna ma aha dad u bislaaday ama noqon kara ama ehel u ah inay Soomaaliya iska daa askari wallaahi iyo billaahi askari iska daa inaanan ka dhigteen oo aanay u qalmin ka ay baabka istaaga ee markii la yidhaahdo ninka odayga xafiiskiisa ma fadhiya haa iyo maya labadaa yidhaahda inaanay noqonin ma istaahilaan waayo Soomaalinimada horta waxay sii seegeen markay intay boorar soo qaateen ay carabi ku soo qoreen isla qoraalkii haddana ay soo saartay imaarad maanta marka kuwa halkaan aynu kaga gudubno laba nin oo waxaa jira mid walba deegaan Soomaaliyeed oo iyagu hadda nimankan kale waxay doonaan ha qaseenba laakiin cidi xil uma dhiiban oo maanta dad Soomaaliyeed mas'uul kama aha oo go'aan kama gaari karaan laakiin waxaa jira Dani iyo Axmed Madoobe mid walba deegaan iyo dad Soomaaliyeed ayuu matala warunta ninka la yiraahdo Dani waxa weeyaan buntland runtii ha iska jiitantay ha iska liidatay maamul xumaha soo martay yacni way dhaameen kuwii hore waayo waxaa ku cadaynaysa Cabdiweli Gaas baa ka horreeyay Cabdiweli Gaas lacag urursi buu ahaa jeebkiisu u dagaalamayay laakiin haddana action buu tusayay wuu rabo inkastoo uu ciidinayo dee iibka jeebkiisu la socda moogtahay laakiin ninkii kaliya Puntland marka Cabdullaahi Yuusuf laga yimaado Puntland dhulka ka maqan barnaamijka walaal intaynaan ka bixin Puntland iyo kuma saabsana deegaan wuxuu ku saabsan yahay Soomaaliya hadda doorasho rabtaa inay gasho labadan nin laba maamul bay madaxweynayaal ka yihiin oo ay khasabtay in doorashadu ka dhacdo intaasoo jeer hore diideen waxyaabihii la isku hayay oo dhan waxa la yiri idinku waxa jeceshana la idin sameeyo meesha degantahay lagu yimaado halkan aan imaanayna noogu iman mayno taasi maxay dadka Soomaaliyeed kala gudboon micnaha ileen dadkii doorasho u fadhiyaan in loo qabto dalkii ka dhacdo iyagina madaxweynayaal bay yihiin haddana imaaradii Kenya kala aadeen warunta suleekha waxay u shaqaynayaan cadowga waa la ogyahay taasi nin walba wuu arkaa shacabka Soomaaliyeedna maanta maaha waqtigii reer lagu kaxaysan jiray ama farta wax loogu fuudi jiray qof walba islaanta iyo gabadha yar ee gurigooda fadhiya way ogyihiin maslaxadooda meesha ay ku jirto wayna arkeen reality way arkeen qofka wax qabanaya madaxweynaha danta u ah
ninka maamulaya soomaaliyana waxaan idiin sheegayaa soomaaliya inaanu joogin qof maanta sifirada kara aad baan kuugu mahad celinaya aad baan walaal kuugu mahad celinaya walaal aad oo maadsantay qofka halo magacaagii meeshaad joogto walaal barnaamijka korowgal halo qofka xiga ayaan ka qabanayaa asalaamu calaykum magacaagii meeshaad joogto walaalo halo hello ها ولا كوسو دو برنامجka magacaaga oo ku bilaabay meesha joogto wal magacaygu waa maxamed waxaan joogaa magaalada Kismaayo ee Jubbaland Kismaayo caawisa lagu yahay Kismaayo waa lagu fiican yahay walaal hadda samaraysa alxamdulillah Axmed Madoobe goorma idinku dambeysay Axmed Madoobe walaal uu joogaa magaalada balse maanta inuu halkaas soo dhaadhacay baan maqlaay Kenya kulay saasan ka helay dhacdooyinkii waa toddobaadkan gudihiisa maalmihii lagu dhawaaqayay ayaan dhaweyd aan saa u fogeyn aan filayo in hadda farcasho laga joogo waxaan arkay isagoo jooga sawiro laga soo qaaday micnaha qof la yaqaano oo caan ah Kenya xilka hayay oo geeriyooday aaskiisa oo Nairobi jooga marka ma intuu yimi buu haddana noqday mise sidii uu ku maqan yahay oo ma aydan arag saasan ku weydiiyay goorma idinku ugu dambeysay micnaha والله وادريم كرتا شعب كده مقالة سكجوان هاي marka kama war haysaan maradii oo ku soo laga dhigin de ma ogaan kartid aado weyn marka iska baxa goor baxayna ma ogdiin waa madaxweynihii caasimadii la jooga goordii ka tagay goordii soo laabtay ka war haysaan wallahi waa cajiib barnaamijka hore u gal marka waad ma santahay walaal sida runta Soomaaliya waqti badan bay istijiid iyo gacmadaari soo martay marka waxa hadda ka jirana wax dhalin iyo cid weyn iyo cid yar bay aragto kulliba waqtiga xusi doona cid walba iyo meesha is dhigtana insha Allah waa taariikhda xusi doona adigu waxaad ka mid tahay dhalinyarada reer Kismaayo dadka reer Kismaayo inta ugu badan shacabka taleefanada markaan u furo waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin fara badan cabursanaan iyo guud ahaan dalkii oo mustaqbalkiisii iyo doorashadii la qaban lahaa iyo wax walba oo la isla ragaadiyay adigana waxa tahay dadka dhalinyarada ahaa ee reer Kismaayo dhammaan adigoo ku hadlaya guud ahaan shacabka ama dhalinyarada reer Kismaayo maxay idin la gudboon bay idin la tahay oo xal idin ah ilaa mustaqbalkii waxa tihiin wadanka la hortaas waa ogtahay waxa weeyaan maadaama dhalinta ay tahay mustaqbalka wadanka mustaqbalka dhow iyo kan dambaba waa runtii waa dhalinta Soomaaliyeedna marka hadda indhaha u furan waayo inta badan oo joogto waa in ciidan ah oo taawacsan oo dadku waxa leenayo in kale oo xijira la socota marka run ahaantii ileen fooda hadda uma horkici karno balse waxaan leenahay cid walba maanta xil hayso biri meesha way banaan doontaa ajal iyo malakumood iyo way leeyihiin xilkana way ka deey karaan balse waan ku ixtiraameynaa oo kaliya intay joogaan waqtigoodana waa siineynaa balse waxaan diyaar u nahay inaan ka tashano oon dib ugu soo celinin aad baan kuugu mahad celinayaa walaal aad baan kuugu mahad celinayaa reer Kismaayo waan salaamayaa habeenku ha idin wacnaado qofka xiga ayaa rabaa inaad ka qabto halo assalaamu calaykum magacaagii meesha joogto walaalada ku bilaabaya hello khadka ka culus ayaan filayaa reconnected buu leeyahay qofka xiga ayaan ka qabanayaa halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahma magacaagii meesha joogto barnaamijka hore u gal isla markiiba waxaan joogaa Francisca haye barnaamijka hore u gal walaalo barnaamijka haddaan hore u siin karo nimanka سعيد يرى لله أحمد قرح هي أما أنت هذا سكو أبترسنا مع ذلك كيف نقولي أما المدير بنقولي هي من لبعضها مسميت كود لبعضها هي مركا ذلك ما ركتين من كان مساعد عيارتك الدنيا الله
هذا كدين مايانه اللي وابد aragtay oo la yiri war naga daay ciyaarto deyn waaye maanta markii Soomaaliya la islaha war nimankan bal hada geeday ku xoqataba haweyde wax laala wixii xarig ay qabsadaan loo sii daayay kama dambaystiinay yiraahdaan shirki saxiix mayno guddigoodii iyo dadkii ay iyagu keensadeen wixii lagu heshiiyay oo meeshii wix kasto ay rabeen loo yeelay inay saxiixaan ay dhinaydo waxay xitaa diidan yihiin aysan ku jirin inay maanta xitaa guddiyadooda u yeedhaan oo midna uu ka dhaco Caluula midna uu ka dhaco Nairobi wax loo dul qaadan karaa waxaas wax horta la aqbali kara ma haddaan dhalinyaranahay iyo haddii horta dhalinyaradii iyo dadka maanta Soomaalidu waa soo jeeda dad oo la khaldi karana ma Soomaalida waxay tiraa bahaliga afqarmuun ugu la joog weeydi waxna isuma sheegto afqarmuun kuma kala tagto baaliglo saas iga sax alla yiis haye marka nimankaan ma aragtay ha kullu sidii inta geelka horta waa iyaga haye hadawna adeerkay Axmed Qurux waxaan kaga yaab markuu social media universal soo istaago khudbad jadinay macaani wakan waa madaxweynuhu qalmaad leeyahay haye fata dhugta ugu jiro haye marka waxa dad badan uu khalday laakiin khaladka hadda waa cadaaday waxa isdaba marta uu yiraahdo halkan waxbaan aan ugu tanaasulay dawladnimadan diyaar u ahay wuxuu af macaan wada horta warkiisu maanta uu cadaaday haye wuxuu maanta uu bayda kala cadaadeen filimkuba dani xaqiisana danina waa ka arkaysay ma aragtay meeshii laga sugayay inuu shir yimaado intuu dhaxda dhuuqsado horta sandi dani isay waxad moodaa inay yaro ma aragtay inay yaro dhuulaad moodaaba guugiisa aftaan in yoole madaray in yoole waa ka arkaysay meesha ka dhacay waxaan ku weydiinayaa arinta imaaraadka ka warqada ay soo saareen leeyihiin Soomaaliya dawladda kama jirto Soomaaliya dawladda ka jirta ma imaaraad baa inaga haysta Soomaali baa imaaraadka naga maxay naga kala dadka Soomaaliyeed marka maxay kala gudbasoo inay arintaas oo kala ka mudaaraadaan ma anaga intaanu soos wasiirkan arrimaha dibadda ma dhihi karaa wadanka dawladda kama jirto way ka dhacday doorasho kama dhicin kama dhacayso waxaas maxaa ka galay bal maxaa ka quseeya walibana kullu ficilka waxa horta ugu badan ee maaragtay dadkan weerarnaya waa warbaahinta warbaahintii walibana in yaroo de ma aragtay iyagu iska rabadhig dadka maanta reer Muqdisho ee Soomaaliya waa dad dawlad qaba dib ma qabaan hadduu dib wax tarayna waa la soo arkay marka anu dhalinyarta reer Muqdisho anu maanta farmaajada ma taageersan laakiin dawladnimada ka taageersana hada weyn laakiin dad badan oo waxa jira farmaajo markaysan ama taageersaneen ama wuxuun ku diidaan ila dadku waa bilaadan qofku waad ku nici kartaa ceeb ma inaad wax ku nacdee laakiin Soomaalinimada ba isaga inta dhakada u saarso aad ka tanaasusho astrada Soomaaliya ba farmaajo ah maanta ma yaqii farmaajo abaan lacala taageersan farmaajo waa shaqsi u tagaya laakiin dawladnimadu mas'uuliyad ma aado weyn intaas dadka ka maqan waa mid inna wala deeqla aadiyaad in aan macnaha maxaa ku dhahaay ay u noqono ama jaranjar u noqoto nin dan gaar ah hale wax sax ma aad baan kuugu mahad celinayaa walaal qof kale aan siinaya halo assalaamu calaykum hello halo walaal magacaaga meesha joogto I'm sorry inuu ku soo geli waayo qofka xiga aan ka qabanaya halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. South Africa. والله. soo dhawow barnaamijka hore u gal xaaladda Soomaaliya wad la socotaa hadda diiraddu waxay saaran tahay Dani Axmed Madoobe oo markii ugu dambeysay wixii guddiga farsamada isku afgarteen inay saxiixaan diiday oo Finfriday noqday Imaaraad iyo Kenya. waan gartay aad iyo aad u mahadsantahay horta walaashay barnaamijka quruxda badan ee dahiisna maaragtay kaaga mahad celina dadku uu kala agtid weeye ma fahanti aragtidaada xor baad u tahay sida aniga aragtida haddii aan xor u ahay isma dhaantii dhasheed maaragtay aan meesha ugu jeedaa haye walow dawladda walow maaragtay معارضك ولو عدة عند ما أنت معنا مالتاي دنت سومالي أكده حكم ما أرى ولي laakiinse Soomaali nimada iyo dawladnimada inaad mar walba garab ka siiso Soomaha marka
waxis dhaama arkooda wax dawladnimo dhaama jira dawladnimo wax dhaama ma jiro oo wax dhamo sugayna waa dawlad wadankeena waayay marka imaaraad oo wadan ah kula mid ah oo hadda wadan baad joogtaa la dhaho South Africa dawlad buu leeyahay siyaasadooda waxbay ka khaldami karaan wax waa u saxnaan karaan doorashadoodu way dhici kartaa xilligeeda waa baaqan kartaa wax waa macna mucaarad iyo maxaafad way yeelan karaan wadanka kale oo dariska leedin laaho Zambia ma oran karaa inta wasaaradooda arrimaha dibadda warqad soo qorto wadanka bilaa dawladda ah oo qalalaasuu ka jiro wasaaradooda arrimaha dibadda warqad noocaas ma soo saari kartaa hadda Zambia oo kale marka ay ka hadlayaan macna wadankaad joogto oo South Africa in adeerteen ma soo saari karaan sababta ay tahay marka imaaraad ay u leedahay maanta Soomaaliya dawladda ka jirta maxay tahay dad ismatali kara Soomaaliya iyo South Africa dad leeyahay Soomaaliya kara maaha Soomaaliya dadkaas u jeediyay dadka muwaadiniinta siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay mar walba wax ka dhageystaan waa beesha caalamka waxa xukumo beesha caalamka madaxweynaha dhabo lagu sheegay annaga hadda madaxweyne leenahay amisana madaxweyne kama aha meesha kora laga ilaashaha xalal la degan yahay marka South Africa waa wadan xur oo asaga ismaamulaa in la isku soo meel dhigaan maaha Soomaaliya cid walba u tashatay adiga Soomaali baa tahay adiga Soomaali baa tahay Soomaalinimada marka hore aamin South Africa waxba kaaga ma fiicna يعني وادت كل مدة أفريقيا بكليهين ودن كذا ياس ويكشقيستين دولة بولية هاي لكن هذا هذا إن بعيده أوتر هذا الدولة كم يشرتو أوتر هذا أنا وحن كهذا إمارات هاو كام إنه يرد الصومالية الدولة كم يشرتو بس إمارات والدولة أنا الدولة بانونا تمرت ماشي دون تهنا دكتور ضد الصومالية ضد أفريقيا بانونا South Africa وقعد شوكته والله قدي بعتها of course ذلك يجا سكاله حق يقول لي هنا كوجد بعتيان لكن واحد كده هاي متشرا ودن انتو ورقد قرار ميس الدبدة وسارد ديسو اي ترى هذا ساوث افريقيا وحا كتشرا دولة الان دولة ديسو ولا على دورشة كمان دعين وحا مكهل كرتا وما يجواب سامها marka imaaraad ku qorto warqad noocaas oo kala adiga inaad is aaminto isku day marka koobaad farmaajo waa nacbaan kartaa mucaaradka waa nacbaan kartaa shisheeyaha waa nacbaan kartaa bad waa inaad dareentaa inaad Soomaali tahay Soomaalinimaduna qiimo kula leedahay imaaraad warqaday qortay inay qalad tahay laakiin saadigi waa bicla dhaxa haabanaya si camal ما يعني أنت معنا مرة Soomaali waa ahay Soomaali waa aaminsanahay aad iyo aad waan jeclahay wadankayga inuu dago إنه فعنا مرة وحنا قيبسنو أما فعنا كسرين وانجعلها لكن فعني سوكو أنه قصة حد قد بايما فعني ميسانا يكون ما توقد السوق ريونا يا دولة مجرد هذه نفتح ضوافر ما جالسن تهاي لنا أورران تهاي نفر ما تشيسني أنا وين دولة ذي سنة هاي لكن هذه الدولة النمدي أو حي كلها تهاي سومالي ناس حوك كتير بدأ من سنة هاي مركا هذه الشيء هذا محس يقول سكيسان ما كجيران مدحوينه فرماجو دولة مو وديو دولة اللي كم جرت أنا أقولها فرماجو بالك كور سكداي South Africa jooga dhabarka laga garaacaya sida ma aragtay dameerta dabada laga feedhooya wuxuu ku leeyahay Soomaaliya dawlad kama jirto marka dadka noocaas way nagu jiraan dalqaad iska sameeya dadka daawanaya kana raali ahaada noocaas kala joogay salaam calaykum walaal magacaaga meesha joogto soo dhaw fikirkaaga hore u gal waa ka xumaa qadka ayaa ka cuslaaday marka xataa wiilkii la joogay oo qolka kula jiray la dagaalaya telefoonka marka jirayay marka ilaahay naas turade dad noocaas waa ilaahay baa naga dhaliyay because Ahmed waxaan joogaa wadanka Ingiriiska Ahmed Ingiriiska jooga soo dhaw walaal barnaamijkan hore u gal walaal waxa ilaahay mahadiya niman 4 sano laga fariisan waayay oo laha dadkay dhulkaan soo duminayna waxaan u baabiinayna markaan shalay arkay iyagoo kabii ka caaranaya cadfaan kaba ka caaranay iyo mahad salaado derbiya jiiraya mahad derbiya jiire iyo khayro habla dusha ka maraya khayra habla dusha ka mare oo gurguuranaya markaan arkay waan yaabay markaas waxaan ogaaday inaan dawlad leeyahay oo qaranka Soomaaliya soo noqday nimankii u adeegayay dawladaha shisheeye kalkaal oo shalay gurguuranaya marka waxaan jeclaan lahaa inay mudaharaad labaad qabtaan bal aanu aragno filim kale oo ilaa shalay kiibaan daawanay bal inay mar labaad nagu celiyaan mudaharaad misna aragna iyagoo mid gurguuranay mar labaad okay taa waa ka gudbaynaa waa filim soo dhamaaday 19 Febraayo waa la soo dhaafay maanta 20 ayaa la joogaa Febraayo waxaa lagu heshiisahaa ama lagu ballansanaa inay Axmed Madoobiye Deni tagaan Muqdisho heshiiskii gudiyadu ay ka gaareen baydhabo in la saxeexo sidaas dalku doorasho galo
midna wuxuu aaday Nairobi saad ka waraysa caaw Nairobi jooga midna qandal wuxuu joogaa calul uu joogaa taas fikirkaaga ka dhiibo walaal waa run waxa yimi madaxweynihii koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo cumar fiisho way ku sugan yihiin xamar laakiin axmed madoowe iyo siciid iyagu waxay sugayaan canaantii way sugayaan waa niman qaswadayaal ah way imaanayaan waxay rabaan in la soo canaanto beesha caalamka canaanteeda ay sugayaan iyo in dabada laga soo mataqaanaa lasoo canaanto laakiin waa kasoo qaybgeli doonaan waxba mataqaanaa iyadoon wax weyn culeys lama maqnaa keliya waxay 4 shil oo ka horeeyay waxay ku imaanayeen canaan bay ku imaanayeen canaanta beesha caalamka marka wax kale soo kordhinayaan canaantii bay sugayaan marka maxay un bay ku saxiixi doonaan nimankan iyagu isma xukumaan qalinka iyagu looma hayo qalinka waa loo hayaa iyaga mataqaanaa canaan bay ku yimaadaan shirarkii ka horeeyay kulli waxay ka imaanayeen maalmihii dambe marka goortii maalin lasoo canaanto iyaga orday iyaga imaanayo kala ordayo kala dhididaya marka wax weyn lama maqnayaan kuwa isku mashquulin okay aad baan kuugu mahad celinaya walaal qofka xiyaan ka qabanaya xagga facebooka dad badan baa waxay leeyihiin soo qabo xasan yaro kale haddaad soo codsato waa ku soo qaban lahaa dad badan bal inaan abruuf garayn karan isku dayaya xagga telefoonkana aanan furan isku dayaya halo assalaamu calaykum mar hore ahaa codsigani markaa ma abruuf garayn karo magacaaga iyo walaal meesha joogto barnaamijkan hore u gal halo waa usoo geli waayey waa ka xumaa khadka ayaa ka culus xoogaa meel internetku ka yar yaad joogtaa baan u malaynayaa halo walaal magacaagii meesha joogto barnaamijka hore u gal soomaaliya kale weeye xageed ka joogta soomaaliya burcaad joogtaa soo dhawaad baan kusoo dhaweynayaa sidee burca caawa lagu yahay xaaladda soomaaliya sideed u aragtaa hadda ka taagan marka ugu horeysa shacabka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed waxa weeye 70% dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed maanta waa laga soo gudbay waqti waxa weeyaan waxay yeesheen cilmi iyo aqoon way garanayaan waxa u wanaagsan iyo waxa u khaldan markaan dhalinyarada soomaaliyeed maanta waxaan kula tarin lahaa inay qiimeeyaan dowladnimada iyo weeyaan aad baan kuugu mahad celinaya walaal wiilkaas reer burca adiga iyo burcaba aad baan idin salaamay qofkii xigaa rabaa inaan ka qabto halo assalaamu calaykum magacaaga walaal meesha joogto calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka hore u galada magacaaga ku bilaabaya magacay waa maxamed naadir aad baan kuu salaamayaa aad horta shalay waxaan ogaaday inaan dowlad leeyahay oo maaragtay nimankii mucaaradka inay ku wada ka carareen oo markii boorar soo qaateen carabi iyo ingiriis ku qoran yahay haddana hablihii ay dusha ka mareen oo qayb ay dhaawaceen oo kabahoodii ka carareen horta ciidan soomaaliyeed leenahay dowlad leenahay horta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaa u dhinayd inay waxa weeye maaragtay soo qortaan kuukuyo maaragtay soo qortaa waxaan kuukuyada dee maaragtay baa u dhignayd baa u dhignayd ma garanaysaa boorka xigaar muyayde mudaaraad kala soo wadnaa bay yiraahdeen marka waxaan imaaraad baa soo kireystay intaasay ugu dan lahaayeen moogta haddii dad soomaaliyeed wadaan iyagoo soomaaliya ay soo mudaharaadi lahaayeen waxa weeye cabasho sheegan lahaayeen laakiinse inay ingiriis iyo carabi waxa weye barar kusoo qortaan oo horta nimankii shalayto ra-iisul wasaaraha waddanka kasoo noqday oo shalayto wasiirada kasoo noqday in shalay kabada haddana ka cararaan oo guryaha naga fura dhahaan horta nasiib xumo baa shalan waanu ku faraxnay ma garanaysaa ilaa xarirta waxa ku farxad bay noo ahayd ma garanaysaa wallahi farxad bay noo ahayd soomaaliya maxaad soo jeedinaysaa marka waa yahay dowladda soomaaliya maxaad soo jeedinaysaa dowladda soomaaliya waxaa usoo jeedinayaa inay sidaas oo kale ay uga hortagtay inay waxa weeye waanu ku taageersanahay ciidanka haramcad gorgor ah baan ugu mahad celinaynaa siday tallaabada sharcigana shalayto say jawaabta uga bixiyaan ma garanaysaa marar kaloo badan naga farxiya dhe marar kaloo shalay farxadda duka wallahi waxaanu saraxay tacaawunku iga baabay saa u qoslayay ma garanaysaa wallahi billahi waxaa ku yidhi saan u qoslaayey geerkii bay casaaday ma garanaysaa shalayto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku dhigan 10 laba ilaa waana nimankii shalay mudaaraadaya oo borarkii ingiriiska carabiga ku qoraya soo qaatay oo kabihii ka cararay kabihii xitaa istaafkoodii xataa ka hormaray meeshan dowladnima dani axmed inay haramcad ka carareen ma laga yaabaa daniya waxa weeye axmed madoobe waxay u shaqeeyaan imaaraad iyo kenya haramcad bay ka cabsanayaan magaranaysaa dowladda in laga cabsado maayo dowladda waa in laga cabsado sharcigeedu waa saas magaranaysaa hadda yurub aan ku noolahay
ma awoodi karo inaan intaan sharci daro ku mudaharaado inaan anoo dowladda u tegin oo cidin waardeynayn oo ma awoodi karo inaan boor iska qaato oo iska mudaharaado xabad baa dowladda la eeginaya sida ciidanka gorgor iyo arab cashar ay muqdisho ka dhacday garas waa la sameeyaa laakiin dowladdu way abuuruftaa maya dowladda waa in loo tagaa waxa weeye dowladda maaragtay laysoo diiwaangeliya dowladda oo qashaay ku ciidanku waardeynayo laakiin se waxaa soo kaxaysanaya toban wiil oo staffaa soo kaxaysanaya waxa weeye waana mudaharaadaya kusoo qor ingiriis iyo carabi baa kusoo qoranaya kabahaygana waa ka cararaya waxaana la qooshalay ku farxay oo shalayto ku farxay xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan kaboodii shalay ka carareen oo waxaa ku hablihii dusha ka mareen oo dadka iyagu ugu hor carareen wallahi waa farxad weeye garanaysaa aniga kaa baay birina hadda xitaa madaxweyne noqdaan xitaa kilibkaas hadaba soconaya waxa weeye maaragtay history bay noqotay ma garanaysaa wallahi history noqon kare aad marka waxaa leeyahay war isimadan jawaab diray isimada puntland waxa weeye waa inay haddii deligan ay meelaha kugu shaqeeyaan soomaaliyeed ma wado waa inay iyagu xildhibaanadooda xushaan ee maaragtay muqdisho tagaan iyagu waxa weeye jawaab ka bixiyaan weeye deligan waxaa loo sheegaya aad baan kugu mahad celinaya walaal qofan teleefonka waxa ka qabanaya xagga facebook alo xasan yar soo dhawo walaal waa dhowahay isleeqo waa i waran walaalo soo ma fiicnid salaan gacalkeeyo baan ku salaamayaa soo qabo marka hadda waa ku soo qabtay barnaamijkan waad la socotaan filayaa hore u gal haa horta intaan barnaamijka galin waxaan rabaa horta bogaadin oo ilaa ay muddo maaragtay dhowr sano jirsatay inaan ku bogaadiyo aad baan kuugu mahad celinaya dhowr sano jirsatay marka waxaan ku leeyahay dalka dumarka sanadkan jooga oo xaawataaka noo bedelay baa tahay kumanaan qof maaragtay beej cusub oo dahab ah in loo furo mudan baa tahay ma fahamtay aad baan kuugu mahad celinayaa aad iyo aad halkaad joogtad kasii wad kasoo kow waxaan leeyahay horta ayaan darra baan ugu dhacday in maaragtay magaalada muqdisho dhexdeeda la isku xabadeeyo anaga nafteena maaragtay image maaragtay qurux badan ma ahan aad baa loogu fiican yahay teeda kalena waxaan maaragtay doqonkeena inaan qabsan karno way fiicnaan lahayd balse dhacdayba dhalinyarta soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxay noqdeen indhaha wax saaran inaan maaragtay waxaan laga hadlo la bubuuniyo ma ahan dowladda sug waa mahadsan tahay baayo waqti isi waa ku baryayahay maya 2 minutes wax la dhaha maaha inaan kula hadlo waxaa waaye process oo usoo qaatay maaragtay waxbaha igu adkeynayna aan baxo caawa aan qaras baxo hurdo xun ay hayso wallahi adigo life markaa ku arkay haye ha marka waxaan leeyahay horta nasab darrada waa inugu dhacday waana wada haysataa anagoo dhan dad yowgaan odayaasha ah oo wada viruska qabo in horta dalka laga tirtiro way u baahnid balse wixii maaragtay soddon sano markaa lagu leeyahay kuwan baana hortaagnaa iyo wax lamid ah ilan video baan ka hadlayay sorry waa lightka ii dansane marka waxaan ku leeyahay walaashay dadka hal abuur kale waa loo baahan yahay systemkii dad baa maaragtay isbaaro u dhigtay oo irsaaqadooda halkan gashay oo maaragtay caruur ka korsan jiray kansarka ku dhaca ayaga oo dad tiro badan ah oo aana yareen marka saan sii horleexin lahaynay waxaa loo baahan yahay in maaragtay la darso dalkana doorasho ay ka dhacdo doorashada ka dhaceysana aysan noqoto gobol hortaan waa kasoo horjeedaaba sida puntland iyo nini waxaan oo dhan ina cagta la maray baan maaragtay aan soo jeedin lahaa haddii ay macquul tahay oo la heli karo oo dalkeena uu noqdo maaragtay dal oo hal meel laga xukumo governorada maaragtay governor loo aqoonsado dadkan ciidamada jooga goboladana ay noqdaan ciidamo soomaaliyeed ay noqdaan boolis soomaaliyeed ma fahamtay aniga ujeedkayga nidaamkaygana waa kaas haddii la helayo marka wadadaas baan ku soconaa way arkeen uma jeedaan waxay rabaan nin walba inuu maaragtay halkiis uu iska gaagacmaysto oo irsaaqadooda maaragtay ba halkan dhiigan ay irsaaqdaan waad arkaysa ninkan generaal maxaa la yiraahdaa generaal mana dhihi kare beerka kansaha kaga dhaca midkan indhacade waagu uu soo joogay inta dhexle buu dhiigana maaragtay quudanayay wuu soo taagan yahay oo maaragtay meesha uu istaagay oo
hantida ummadda maaragtay lagu sharaxay daljirka dahsoon waad aragtay ana horta nasiib uma yeelan oo muqdisho weligay ma arkin ana hadda kenya joogaa siba gobol kenya kamid ah waa jeclaa inaan dalkayga maaragtay aan ka shaqaysto aan joogo wax aan ku barto waan jeclaa oon wax ka noqdo balse nasiib daradaas kii i baday oo haddana intaan maaragtay cashar ay u noqon weysay ku filnaan weyday ayaa soo taagan meel maaragtay adiga shilinkii lagaa qaaday aniga shilinkii laga qaaday camal dadyowga masaakiinta shilinka ay bixiyeen ay ku dhisteen oo ku quruxsadeen ayuu isa soo taagay inuu maaragtay u yiraahdo amaankii baa halkan ka sugaya waa istibadnimo baas inuu lagu furo ku filan waa ku siiyey waa mahadsan tahay marka waxaan leeyahay dowladnimada habarto dowladeena inaan maaragtay election aan dhigano farmaajo uu soo baxaa cidna maaragtay dood kama qabto inaan election dhigano ay maaragtay u hoggaansamaan waxa wax dooranaya waa anaga ayaga ma ahan aad baan kugu mahad celinayaa qof taleefanka xaggiisa baan ka qabanaya cabaarkan taleefankaanan qabanin aad u mahadsan yahay xasan yare halo asalaamu calaykum magacaaga wala niimasha joogtaada ku bilaabay barnaamij barowgal halo asalaamu calaykum وعليكم السلام سعودي عربية مياه واكو سلامي وكاقا هذا السودة كنت هذا سام كسو قراعي باكي رالي هولا لدد بدن با اسو قراعي ها حوغا قف حقة فيسبوك قال لها اللي مركا هروقل برنامجك وحوغا كلا سعودي مركا هدان هروقل هردانو وحن كو هرينيا labada hor iyo dabadid baan ku horeynaya labada hor iyo dabadid ku horowgal waa dani iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe haye ku sida dani labada nin waa iska macruuf bay hal wal kasta loo ogtahay ka geela la jooga waa og yahay laakiin si anigu isaga la hadlay waxaan la hadlayaa odayaasha Puntland ama hartiga Puntland haye nimanka isimada ayaa la hadlay anigu haye waayo iyaga ayaa markii la dhisay Puntland iyaga ayaa hay'adda ugu sarreysa ee Puntland iyaga ah ceebta uu dari keenana iyaga ayaa qaaday ama boqor ha noqdo ama garaar ha noqdo ama islaan ha noqdo nimankaas ayaa eedda qaadaya iyagaana dembiga qaadaya berri waxaa ka dhaca waddanka Soomaaliya iyagaa eedda qaadaya ama boqor ama garaar ama isib oo nimanka harsi ee degan halkaas iyagaa eedda qaadaya iyagana xamilaya ceebta ayaa qaadaya eeddana iyagaa qaadaya haddii kale waa inay wax ka qabtaan ninkan fedhaha weyne meesha koorkaasaya ku horboodaya haye taasna san ka tegaya ninkan odayga la yidhaahdo Axmed Madoobe hadda saan ognahay Kismaayo nuskeed iyo wuxuu haystaa iyo magaalo yar 20 kilomitir isu jirta anigu waxaan oran lahaa madaxweynaha oran lahaa hal la geliyo ciidamada dadkiisa wax la soo qabto oo jeelka linta ku cad waa isaga halkale ma laha waa la soo qabto waa la soo jeelka linta ku cad saaxiibkii linta la cabo ma leedahay robo laga dabagayo baalkii kii baydhoo laga qabtay iyo kii odaygii saaxiibka ahaa ee bes joogi jire ay isku ahaayeen shabaabka isku wada ahaayeen saddexdaasba waa khalad baa laga reebo waayo markuu xal leeyahay ama wax maqlay ama waana leeyahay ayaa wax lala hadlaa lala heshiiya haye marka nin telefoon la baxay laba nin imaaraad iyo kiina telefoon ku wadaan waan awood lahayn oon caqli lahayn wuxuu yes yirno amin noolan karin wax laga sugo maaha waa kaana xog u qabtaa kaana odayaasha waa inay soo doortaan nimanka baarlamaanka waa iyagu soo dhisaan way is yaqaanaan inta reerka inta oday meel joogta ay soo dhisaan baarlamaanka soo diraan xamar soo diraan baarlamaanka hoose warqadda imaaraadku qoraysay waragtayada warqadda imaaraadku waxaan iska sugaynay waa waxay ka shaqeeyeen xasan gurgurta iyo shariifka markii u dambeysay waxa tagay shariifka iyo waxa tagay Umar Cabdirashiid baa tagay imaaraadka way isqaybiyeen saddex imaaraadka tagay saddex la kiirey tagay heshiiskoodii heshiis maxaa keenay in lagu qoro carabiga ilaa Soomaali carabi ma taqaanay maxaa keenay boorka carabi lagu qoro waxaa la tusayay inay wax sameeyeen baa la tusayay iyagoo imaaraadka hadalkaasay ka lahaayeen waxa boorka loo ku qornaay baa la tafsiirayay intaas baa la tafsiirayay iyagoo hadalkay ka lahaa waa inta idinku intaas sameeya deedna annaga tacliiqda kala soo baxayna halkaas bay kala soo baxeen ay yidhahdeen wada kama jirto
dowladda federaalka mid hore dowladda federaalka iyo madaxweyne farmaajo xafidahullah ilaahay xafide waxaan oran lahaa oo soo jeedin lahaa war birina awood baa haysataan oo ciidan baa haysataan waxba ka birina ninkii horta qarnimada Soomaaliyeed god ku rida wuxuu doono ha noqdee midda kale xagga hawada waa loo soo wareegay hawadii innaka haysanaa la yiri haddana dani oo ayaa marba diyaar u yeelanaya bay soo dajeen gabaygiisa waxaa ku disha diyaarad taa hawadana waa in ay tallaabo ka qaadaan dowladdu laba haysataa waxaa kusoo dejisee aad baan kugu mahadcelinaya walaal aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya qofka xiyaan ka qabanaya halo salaamu calaykum halo magacaaga meesha joogto barnaamijkan hore u gal halo waxaan qofkaana waa u soo gali waaye qofka xiyaan ka qabanaya waxaan rajeynayaa qof walba inuu ku soo koobo hal daqiiqo fikradiisa waayo dadka dhan inaan wada maqalno codadkooda ayaan rabnaa dadka shacabka ra'yigoodu waa u muhiim waa dadkii dalkan iska lahaa qof walbaaba ra'yigiisa inuu dhigto waa muhiim aad baan kusoo dhawanaya walaal magacaaga iyo meesha joogtada ku bilaabaya walaal baay adigoo aad u mahadsan waxa weeyaan qaasim maxamed cumar kana soo hadlaya magaalada muqdisho walaal qaasim aad baan kuu salaamaya adiga iyo reer muqdisho suleeq aad baan kaaga qaado walaal garlabo qofood kama qoslisa ayaa la yiri walaal Soomaalidana runtii isku sheegto maanta waa loo baahan yahay walaal caaw waxaan ka hadlayaa xaqiiqada walaal sare aad baan inta daawanayso barnaamijkan aad baan u saleenayaa suleeq iyo Soomaalida meel walba dunida ka joogto walaal madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ummadda Soomaaliyeed in badan ay u tanaasulay ummadda Soomaaliyeed oo u tanaasulay wuxuu ka go'an qaranka Soomaaliyeed inuu kor u qaado walaal dhibaatada jirta waxa weeye fargelintiisa ayaa jirta haba ugu horeysay madaxweynaha iyaga maxamed saciid bani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed maanta waxay taagan Soomaaliya nabaddu waa u jeedaan meesha ay ka quruxsan tahay gaar loo qof kama qoslayso wadaniga ha shaqeyso qabyaalad hal iska dhiga ayaan dhiilaa ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxa uu baaqi lahaa Muqdisho ee $6 la tuuray inay ka wanto waa $6 waa $6 maanta aqaaytid waxay u soo dhibi kartaa dalka masiibo sukeeya iyo foodo iyo burbur ay u soo dhibi kartaa mid kale ismada reer Suudaan ee aniga akristo waxaan u baaqiyaa inay ninka maxamed saciid bani ah ee imaaraadka maxdii jar imaaraadku ma noqonayo inay aad iyo aad inkasta hadalkaaga aad in yar baad moodaa codkaagu inuu gogo'ayo ma garanayo dadka si fiican baad u dhigtay aadna waa ugu mahadcelinaya hadalkaaga aad soo koobtay muhiimadana waa aad siisay aad baan kugu mahadcelinaya qofka xiyaan ka qabanaya walaal waa ka xumaay xoogaa in yar baa gogoga ku jira wiilkaas codkiisa laakiinse hadalka dhabtiisa qofku inuu abbaaro una soo koobo ra'yigiisa aad iyo aad baan u jeclaan lahaa halow magacaagii meesha joogto walaal adoo soo koobaya okay waa ka xumaa qofkan uu ka go'ay qof walba waxaan isku dayayaa hal daqiiqo inaan siiyo walaal hal daqiiqo kusoo koob magacaaga adoo soo bilaabay magacayga waa Farxan Cabdulla Xasan jooga gobolada dhexe magaal gobolada Puntland baad joogtaa barnaamijka hore u gal gobolada dhexaan joogaa galguduud aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay runaantii waan jeclaa barnaamijka inaan ka qayb galo oon dhegaysto in badan baan ku dhegaysanayay waana kugu bogaadinayaa barnaamijka aad wado iyo sida aad u taageersan tahay waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo tilaabsato oo tisqaado haddaan usoo gudbo arrimaha Soomaaliya waxaan dhahayaa nimanka mucaaradka oo runaantii ku mudaharaadayo xamar magaalo nabadeed weeye Soomaaliya oo dhan baa ku nool runaantii meel baa laga soo waday dowladduna waa qor isku dhiib waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo ka degi maayo ilaa uu magaranaysaa u yimaado madaxweyne kale waqtigiisuna magaranaysaa ku yimaado madaxweyne kale dalkuna fuudo ma ahan waxaan dhihi lahaa marka dowladda ayadana ha adeegsato dowladnimadeeda awooddeeda military shuruucdeeda ha adeegsataan leeyahay in loo jixin
waxay ma muuqato dad loo jaxanjaxo maantay oo magaranaysaa shir loo qabto oo wax loo adeegsado runaanta waxa ii muuqdo waddan la rabo in awoodda lagu qabto ciidan wayna u ekoon tahay marka waxaan dhihi lahaa dowladdana maxaa la yidhaahdaa ha qabsato waddankeeda ayadaa iskale iyadana xooggeeda ha isticmaala dowladna waxa waaye awood bay isticmaashaa haddii af iyo xal iyo arrin iyo ay ku weydo wax waa inay isticmaashaa awooddeeda ciidan iyo awooddeeda xoogeed iyo dowladda ayada mas-uulka ah waddanka wax walba waddanka dhibaayana ayaday mas-uul ka tahay shacabka soomaaliyeed ayaday dirsadeen oo mas-uulka ah runaantii 100% dowladday taageersan yihiin inta qabqablaha oo yarkaana dalka foodo ma gelin karaan waxaan dhihi lahaa ha adeegsato dowladda awooddeeda ha adeegsato meeqaamkeeda ha adeegsato shuruucdeeda dalkeeda ayadaa iskale waxa waaye taasaan dhihi lahaa anugu aad baan kugu mahadcelinaya walaal aad baan kugu mahadcelinaya qof iyo laba danbaan rabaa inaan ka qabto insha allah waa soo gebagabayn doonaa dad badan oo isoo wacaya way jiraan waan ka xumaaya hadduu kusoo geli waayey ama xoogaa khadka oo kaa yaro culus magacaaga adoo ku bilaabaya walaal barnaamijka rowgal waa ka xumaha qofkan khadka ayaa ka culus waa uu soo geli waayey qofka xiyaan ka qabanaya halo salaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام يا barnaamijka waa la socotaa waan malaynayaa ولا لا دي ادان hore ugal fikirkaaga ولا الفكركي waxa weeye mataqaanaa dhamaan dhalinyarta Soomaaliyeed ama qof walba wadanida ku tahay waxa looga baahan yahay taragaas gobolatoriyaasha meesha laga waxaa looga baahan yahay waa laba nin oo yiri waxaanu ka nahay mas-uul ummad iska dhan oo ilaahay meel ku beertay madaxweynayaal baana nahay waana dee loo aaminsan yahay oo si kastaba ku soo baxeen khalad iyo sax laakiin dee waxay loo ictiraafsan yihiin in laba madaxweyne laba deegaan oo Soomaaliya kamid ah ayay ka yihiin madaxweynayaal khasab ay tahay inay doorasho ka dhacdo khasab ay tahay inay amni helaan khasab ay tahay in loo ilaaliyo xuduudahooda laakiin iyaga madaxweynayaal haddana alad waxay leeyihiin wadamo shisheeye oo Soomaaliya cadow ku ah horumarkeeda aan raali ka ahayn nabadgelyadeeda aan raali ka ahayn dowladnimadeeda aan raali ka ahayn laakiin haddana stiil nasiib darro waa madaxweynayaal midda la bogaadinaya waxay tahay dadka ay maamulka u hayaan horta waxay ka faa'iideen ma lahan waxaana loo baahan yahay ragga mucaaradka tii ku dhacday in iyaga lagu banaanbaxo oo raggaas la iska qabto ma garanayo waxa iyagu beesha caalamka aad u hadalhayaan muhiimadda loo qabo iyo baahida loo qabo beesha caalamka waxay la tahay qof walba ka dheragsan yahay laakiinse midda ummadda Soomaaliyeed deeqaysa qof kasta wax garada iyo dhammaan dhalinyarta waxa weeye waddanku hal madaxweyne leeyahay maamulkiisa isaga looga dambeeyay doorasho loogu yeeray waa inay ka qayb galaan xalana iyo imaaraad iyo Kenya iyo dadka shacabka waa inay iyagu hoggaan ka tusaan ma aan iyaga mataqaanaa doorashadii waa loogu baaqay ilaa 2014 ilaa 2020 ay socotay war hal la qabto doorashada dhulkooda aysan ka dhacin iyaga heshiisyada ka baxay godka galaanba in laga saaro aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxay la tahay raggan sira badan baa laga hayaa waxay la boodboodayaan waddanka raa inay la qasaan sirtooda baa la fashilin rabaa waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed wax yar baa dhiman ha loo dulqaato kolba waa loo soo tadheeranayaa laakiinse maalintii la soo qabto waxay la tahay cadaalad bixinaya aad baan kugu mahadcelinayaa walaal qofka xiga ayaan ka qabanayaa halo salaamu calaykum sorry waa markii labaad baan u malaynayaa qofkan uu soo geli waayo qofka xiga ayaan u gudbaya halo halo si seexanaysa walaal sorry runtii maalin hore wax ka dhacay magaalada muqdisho oo wax laga xumaado runtii dhalinyar ahaan oo runtii wax walwal nagu reebay maadaama aanan anaga dhalinyartii ku dhalatay xilligii dagaalkii runtii aanan system ka dhexayn waalidkooda oo haddana caruurtoodii runtii haddana kasii dhexlayaan system sii qasan taasoo ah mid runtii murugo iyo walwal mustaqbaleed leh arrinta mucaaradka iyo muxaafadka ay isku haystaan waan dareemi karnaa siyaasadda Soomaaliya maanta waxa waaye waxay noqotay afar oday oo runtii dadka shisheeye wax kusoo shubteen
runtii mustaqbalkoodana burburiyey kan jiilka cusubna raba in ay burburiyaan laakiin hadda waxaan u malaynayaa shacabka soomaalida in ay runtii wax barteen ay dareemayaan xaggu duufaanta ay ka jirto baan uga xumahay waxaan malaynayaa waa uu ka go-ay waa soo gabagabeynaya insha allah hal qof aan rabaa inaan sii ugu dambeeya hadduu qofkaas usoo galo nasiib asalaamu calaykum magacaaga iyo meesha joogta adoo ku bilaabay fikirkaaga soo koob ka xunahay qofkaasna waa usoo geli waayey qofka ugu dambeeyey buu ahaa intii qofee uu usoo geli waayey isku dayda inuu soo wacdaan barnaamijkan fikirkooda waxaan filayaa dadkii halkan kasoo hadlay boqolkiiba 99.9 waxay isku waafaqsan yihiin khaladaadka dini iyo axmed madoobe ay dalkan ka geysteen dad kalooto oo ka xun baa jira nimankii boorarka af carabiga kusoo qoray laakiin always ani waxaan idhahdaa war shakhsi aniga ila mida ama madaxweyne soo noqo ama wasiir soo noqo ama ra-iisul wasaare soo noqo aslonga adiga aadan dalkan xil ka haynin de waxaad geysatay wax shakhsi shacabi uu geystay waddanka dhibaato weyn inuusan ku hayn baan aniga u arkaa yes way geysteen dhibaato naf way galaafteen cadow way soo hogaamiyaan rufiyaano way traitors bay dalka ku yihiin waa dad maaragtay qaran dumisa oo waddan shisheeye u adeega oo dalkan inuu burburiyaan ka shaqaynaya iyagoo allayd laa dad shisheeye ah ee saaxiib ka dhiganaya marka way yihiin traitors laakiinse marka loo barbar dhigo labada nin la yiri madaxweyneyaal baatiino ummad baad afka haysataan waa totally different aad bay uga duwan tahay waayo iyaga uma baaqanin doorasho nimankan daaraadka dhigayay doorashada uma baaqan laakiin dani axmed madoobe ayuu u baaqatay intaasoo jira intaasoo shir loo qabtay intaasoo shirna ka baajiyey intaasoo lugooyana dalkan geeyey intaasoo dhaqaalena ka burburiyey laakiinse dadkan kale ama ha qayliyaan ama ha qoraan waxay rabaan ama ha caytamaan ama ha habaarramaan ama ha cararaan ama kabaha ha tuuraan ama yuhuud baatiin albaabka naga fura ha ku waasheen nimankaasi iyagu haramcad iyo gorgor baa ka adag shaqadooda gorgor iyo haramcad ayaa hadda u soo baxay marka ama ha ordaano gabdho dusha ha ka jiidhaano ama kabta ha ka cararaan ama kufu surwaalku ha ka dilaaco wixii kastoo soo gaadhay oo ay dadka shacabkaa gaadhsiiyeen gorgor iyo haramcad baa idinka gooynaysa war naga fura albaabka ma waxaad tihiin yuhuud markay lahaayeen dad xanuunsanaya xitaa waad maqlaysa inay dhaheen caafimaad baanu ka qaadnay saa ugu qoslaynay fiidiyoyadooda marka heerkaasay soomaali ka joogaan xil ma hayaan shir looma baajiyo kulan looma baajiyo doorasho looma baajiyo still way yihiin dadkan dalka way ku yihiin dhibaato way ku hayaan laakiinse labada nin ee hadda u baahantahay inay soomaaliya ay u jeediso focuskooda waa dani axmed madoobe haddaa ka indha sarcaadsanayd haddii qabiilka kaatan badnaa haddii aad u heesaysay haddii aad u buraanburaysay hadday kula wacwacnaayeen maanta ogow ku qariye gunacad buu yiri ninkii jiray laydin qariyo isqarisee finalkii maanta xalanimo naloogu qabanaa shirka beesha caalamku ma nala saxiixee heshiiska haddaba taw xaguu iskula sii daayay nairobi taw calula ku qariye hee guncad kii cid kuu xigay iyo kii qabiil kugu taageersanaa awalba shantoo midh bay ahaayeene shantii midhna maanta waxay taagan yihiin astaqfirullah dadkaanu taageerayna ma noocan bay ahaayeen haddii indhaha uu ka qarinayay qabiil iyo jacayl oo xoogaa daah la iska saarayay iyo hadday dhibaato kala jirtay laakiinse xilligan it's over way dhammaatay ku qariye guncad maanta gorgod iyo haramcad dalkan idinkaa mas-uul ka ah cid walba oo ku ah cadowna inaad ka celisaani waa wixii laydiin soo tababaray inaga dhiciya labadaa nin haddaba soomaaliya labadaa nin ha laga dhiciyo sidii nimankii kale aad u caydhsateen idinkoo caydhsanaya insha allah one day kolley dani waa axmed waaba dani horta isaga barur buunaba ka ordi karaynba labadaasoo ordayaan sugnaa shacabka soomaaliyeed labadaasoo ordaya idinka sugaan haramcad iyo gorgorow labadaasoo ordaya axmed isaga waaba dhitinayaabo
tallaabo ma riixi karo waa kaamaradu isagoo jiifay ku dhacaysaa horta tallaabta ugu horreysaba qambalaf danina waaba aragteenba de waa iska doontaas weeye orod ma jiro nimankii cabdibilayaasha ah camal maaha ee cagaha dhaadheeraa marka haramcad iyo gargar waxaan ka codsanaynaa labadaa nin oo ordaya bal filimkaa hana loo daaro filimkaasaa noo dhimanay aad baan idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed oo indhihiina fura waanogaay way furan yihiin shaashadaha saasaad ula socotaan xogogaal baa tihiin war idinma seego laakiinse xoogaa xagga tallaabo qaadista idinku yar tallaabooyinka inaad qaadaan way fiican tahay waayo marar badan waxaa jirta inaad xoogaal tahay waxay kaa difaacdaa dhibaatooyinka qaar kugu soo socda inaad ka warqabto laakiinse waxaa ka muhiimsan inaad ka hortagto ka hortagiyaa iniga dhaman iminka laakiinse inaad ogtihiin wax kasta waan ogahay aad baan idin salaamayaa dhammaantiin soomaaliya ha guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu